Horaan iyo haddeerta waa asxaabta qiimaha lahay ku soo dhawaada Ummadda Media. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiqaadir. Isla socod wanaagsan xalqada maanta. naftu inay maqnaatiyo inay mahad ku nooshahay labada mid weeye Waa 2024 bishii labaad ayaan sagootinaynaa caawa dhalinyarada aan asxaabta nahay ee goor hore ku soo xirmay Ummadda Media. Xalqado kala duwan ayaad kala socoteen halkan oo aanu baahinay. Inkastoo muddo aan ku kala maqnayn hawada, haddana haddeer waxaan idin leenahay isku soo noqod wanaagsan. Noloshu sideedaba waa hardan iyo tartan. Mawaadiicdeeni niyad dhiska ahaa een dhalinyarada ku baraarujin jirnay ayuu isla mawduucani ka mid yahay. Qaybaha dambe ee mawduuca waxaan ku soo qaadan doonaa tix la yiraahdo Hirasho oo aan sameeyay 16 bishii 10aad 2023. Erayadeedana waxaa ka mid ah haadiyo dabaysha walaala hugiyo marasha muhiim ah ayaa nolosha u baahan howlkarnimo lagama maarmo. Dhalinyarada sharafta leh ee Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan marka isbarbardhig ku sameyno anaga nolosheena iyo nolosha dhalinyarada kale ee dalalka soo koraya oo dhashay. Ninka dhalinyarada ah ee anaga nala eg ee maanta jira da'aada 30 ilaa 18 waxa uu haystaa kombiyuutar u gaar ah. Waxa uu gurigiisa ku dhex leeyahay qol xafiis ah. Waxa uu sameeyay investment ama ha ku sameeyo ilaha dhaqaale ee kala duwan. Ha noqoto mid uu dhaxal u helay, ha helo mid uu baqti nasiib ku helay, ha noqoto mid uu xitaa soo dhacay. Laakiin investment ayuu leeyahay. Wuxuu ka shaqaystaa xirfad ganacsi ama xirfad farsamada gacanta ah ama xirfad uu aqoontiisa ku helay. Laakiin ka horan adigu jaamacaddii waad dhamaysay ama iskuulka waad dhamaysay ama labadooda mid ka mid ah ayaa kuu gabagaba ah. Weligaana xitaa 15 daqiiqo oo cimrigaaga ka mid ah ma aadan soo shaqaynin. Xitaa weel ma aadan dhaqin. Waxaad nooshahay casrigii ama qarnigii dadku waxyaabo basiid ah ay lacag ka sameynayeen, sida qashinka wadooyinka laga aruuriyo, kubad cag oo la ciyaaro, xeebaha kuwa nadiifiyo oo hay-adaha waaweyn ay lacagaha siiyaan, kuwa dhirta yaan la jarin yaan geedaha la baabi'inin, deforestationka kuwa ka shaqeeya ee maxaan ku rahdaa kaymeynta iyo abuurista dhirta. Adigana zamankaas ayaad nooshahay. Ka waran mana samaysid wax income ah, wax dakhli ah ma samaysid. Dhalinyaro, wake up aan kacno. Waad hurdaysaan, waad jiiftaan, looma baahna. Waa inaan iska dayna waxa la yiraahdo dependability ama ku tiirsanaanta qof aadana ah. Waa in nin kasta oo dhalinyaro ah iyo gabar kasta oo dhalinyaro ah ay leedahay hadaf 2040. Maxaan hiigsanayaa, maxaan rajaynayaa, maxaan doonayaa. Gabadii mawduuciyuuna iga dhuminay waxaan kusoo gabagabeynayaa tixdeennii aan hadaayata idiin sheegay ee Hirasho. Waxayna tahay sidan soo socota: haadiyo dabaysha walaala hugiyo marasha muhiima ayaa nolosha u baahan howlkarnimo lagama maarmo. Waxaad hirashada doonayso hiiga laabtuna jeclaato, haradu meeshay jirtood haraadka ku reebi layd haddaadan wadadeed aqoonin allaylehe waad hungowday. Haracsiga daymada indhaha hamiga ruuxdaada ooman hawada nafta layliyeysa damacu kaama hawl yaraysto. Hawada nafta layliyeysa damacu kaama hawl yaraysto. Taa macnaheedu yahay halkaad iska ciyaarayso, halkaad iska dheeldheelayso, naftu waxbay jamatay, waxbay u baahan tahay, waxbay doonaysaa. Waxa iyaga inaad ku saacidana waa muhiim. Yacni naftu waxay doonaysaa ahdaaftii loo abuuray ee Ilaahay u abuuray, kuwii iyadu ay lahayd ee qeyrkeed gaaray. Haddaba naftaada ku caawi inay gaadho halka ay doonayso, si aad adiguna u noqoto mid guulaystay. Waayo adiga iyo naftaadu waad isku xiran tihiin. Amaana Allah, khayr badan ayaan isku ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Halkani waa Ummadda Media. Asxaabta kale aan weli ku soo biirin muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro, fadlan subscribe noo saar page-ka oo ku soo biir Ummadda Media. Mahadsanid.